نبان ذيك الشيكين عجيبة ومعاصرة نك وحلا هذا محمد توفيق ابن أحمد ومصري وإنجنير وزمن كان عن نور نحن كن سجال بقول سجال يلا بعتنكي إلا كن سجال بقول سجال يصدق طبعا سنة أي الله قدر سكولرشيب وحبرشة سويسرلاند بوتري ninkaas ka masriga injineerka ah wax soo baranaya way maalin baa waxaan ku arkay inuu gidaarka doctor magaciisa la oran jiray Robley oo wadanka caan ka ah ayaa wuxuu yiri lecture baan jeedinaya magaciibu soo dajiyay waxaan idinka sheekeynayaa buu Masar iyo Falastiin muxaadaro saas magaceeda haabuu magacii bay soo jiitay buu magacii bay soo jiitay tag baan isiri buu Switzerland afaf badan baa laga hadlaa af German waa laga hadlaa af Faransiis waa laga hadlaa qayba af English ku hadasha ummado badan baa isla nool ninkan qolooyinka af Germanka ku hadlayay uu la joogay af Germanka uu xoog badna bii xoog ma aha waan fadhiistay bii lecture-kii la wadankayga baa laga hadlayaa Masar iyo Falastiin ninkii wuxuu bilaabay bii sawirro sita falaashyadan gidaarka lagu dhufto daatada PowerPoint-ga ayuu wataa bii sawirro sawirayaa bii markaas wuxuu yiri wadanka ka imid ee Masar la yiraahdo yiri dumarka way gumeystaan meher wax la yiraahdo bixiyaano gabdhaha way iibsadaan meherkii wuxuu ka dhigay wax la iibsanayo 10 gini iyo 20 gini iyo 30 gini baad gabadh ku iibsanaysaa ayaa maxay la yiri waa wadanada adduunka ugu uska gabadan buu yiri waxay caabudaan buu yiri nin carab ahaayo Muhammad oran jiray ayay caabudaan ayuu yiri anu waan fadhiyaa buu Muhammad ninka aan idinka sheekeeyay Maxamed Tawfiiq ibn Ahmed af aan ku hadlaan garan laayay afkii aad uma aqaano wuxuu sheegayna waan fahmayaa ciil baan iska hambiyay bii halka aan maraya walinka Nabi Maxamed wax ka sheegay islaamkii wax ka sheegay waxa igaga daran buu yiri isagu ha iska qaloocsanaadee masaakiinta uu ku akhriyo beenta u sheegay fadhigii baan ka kacay buu gurigii aan deganaa baan tagay buu islaamtii guriga aan deganaa lahayd ayaa ila lecture-ka dhageysanaysay سلام كانوا كورين waxay igu tiri war diinba ma haysataane diintii maanta laga sheekaysanay soo kii doctor Robley wixii aad ka sheekaynayay ah way iga sii dartay buu qolkii ban galay buu habeenkii ma seexan buu murugo lama seexan buu habeenkii abadan waxaan bilaabay inaan dictionary soo qaato waxa laala wixii dictionary garanay inaan soo qaato jawaabtii horta af Carabi ku qoray buu waan ku ciil baxay buu afkayga horta محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يدي horta qortay buu intaan qortay baan afjar mal u turjumay buu oo waxaan kala soo baxay buu dictionary-da islaamtii imika ila deganeen xaafada ee iyo saysay ayaan intaan u geeyay baan ku iga saxbal afkiina iga sax inta yar ma xalay toro xariiqay markaas ay toosisay buu aroortii intaan tagay baan journaalkii ugu weynaa wadanka ayaa ku ori jawaabtii Dr. Robley ayaa ka jawaabayay been way shalay wuxuu sheegay hal la dhajiyo waa la soo dhajiyay journaalkii baa la igu soo qoray buu jawaabtaydii aan ugu hiilinayay sallallahu alayhi wa sallam iyo islaamka maalintaas aan ogaaday buu in islaamka baahi loo qabo dadka kale afkooda wax loogu sheego dadkuna ay qalad islaamka ay ka aaminsan yihiin maxaan bilaabay buu journaal baan ku curiyay journaal la yiraahdo tabliiq islaami waa laba mujallad waa laba warqadood tan iyo labadeed ana qorqoro buu usbuuci maalin baan soo saaraa buu inta qof ee garanayo internet ma jirin email ma jirin Facebook ma jirin Twitter ma jirin Instagram ma jirin maxaa jiray bariga post bariidkii la qaali jiray post iyo guriga loogu ri jiray warqadaha in allaala inta qof ee garanayo buu yiri ayaa bilaabay buu inaan ugu rido guriyahooda islaamkana uga sheekeynaya maalin baa ayad baa fasira xadiis baa fasira saxaabi baa ka sheekeeyaa buu intayda taagtayda ninkaas sheekada muxuu waday 56 sano 56 sano ayuu waday Muhammad Tawfiiq ibn Ahmed wuxuu go'ay isagoo ay gacantiisa ku soo muslimeen bacd Allah ilaahay kadib 4000 oo qof oo Yurubiyaana ayaa gacanta Muhammad ibn Tawfiiq ku soo muslimay rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ya yaqaana ma maqashay Muhammad ibn Tawfiiq hore liyo hebel baa ku badciyaaray hebel ayaa heestaan idinka sheekay hasbi okay ninbaa ka qoray kitaab
محمد ابن توفيق ابن أحمد رجل أمة للأكعي أيها محمد بن ويدي dadka mamar un baa warqad u diri jirtay mise waa daba joogi jirtay kama hari jirin toddobaad walba waa diraabi kii kuugu degdega badnaaya soo muslimay baa leeyahay imisoo ku soo muslimay 2 bilood shahray ayuu ilaahay hanuunka ugu qabtay kii kuugu badnaana 17 sano usbuuc walba warqad u diriyay ya dhalinyaro xasbi allah ya shabaab 17 sano يعني سبت إلى نافي جربوا أدر كلمة إلهي جارسي بلغ عني ولو آية ولتكن لكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقت الدين إلهي جارسي يا أبو إلهي الله سبحانه وتعالى تضمن يتبصرنا أيام نجرب لدبا تاجنا نكون دبا تاجنا ونحن نقول مركي دبا أستاذ بروفيسور كدغا جامعة فاتيكان isagoo muslina ay baxto ninkii uu muslimay inaan buu dhalay inankiisina ninkii dalaadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo muslimiyay ayuu magaciisi u bixiyay maxaan uga socdaa athabaat waxaad qabanaysa wad ha googoynin ha jarjarin ninkaasba intaas u waday miyuu daalay yaa yaqaan maanta maxamed tawfiq ilaahay baa yaqaan allah yaarifu xukufan maxamed tawfiq almisbaa galan waa xukufan ha ما أنت عمر بن الخطاب لفرنا يقادسية ها مش الإيراني مثل اللي هي يا عراقي مركي لفرنا هي أيا مركي لو كان سيدنا عمر قوشي لو كان اللي يجي وين يقول يسنا وين يقول يسنا وين فرنا نقولكي أيا عمر جه هوس حرسنا يا لو كان عسكري كانوا بيقول ورياه إمساي نقدر نتفاعل نقدر نقاسي الهبل يهبل مقعد بوتري أنت إنك شهيدة markaasuu yiri iyo dad kale garanay in Umar waadi oo caamatu muslimiin ah Umar waa ooyay maxay ku falay buu yiri Umar inaanu garanaynin Ilaahay baa garanaya maxaa uu yasaabu adu leedahay Umar waadi uu garanaysid Allah yaarifu min fawq 7 samaawaat Ilaahay baa garanaya subhanahu wa ta'ala idan alhimmatu alulya ko labo waxa aad bilowdo waxyaabaha inaga in lagu yaqaano waliba Soomaali dadaal حفظي أقول جعيل وين لنا هل أربنا كدمن لكن ومحي بود صبر ملهي حيري سالفضوضة حيري لك والحيسان صبح والحيسان سالفضوضة أبي وحيابها إن لم يقام مليارون ضريبة لك موريتانيا ودريان سيدي سنوجوغا هلكا وذات سجاشن جرا كله هوس فريسو دينت إلهي كسر هاي جامعة halka hoos fadhiba sheekhi baa marka wazi ziyaarta sheekhi baa ku ايش رايك بالصوماليين marka wuxuu igu yiri Soomaali xifdigoodu waa fiican yahay dadaalkoodu waa fiican yahay sidoo kula joogo ayuu baa lagu oranayaa uu dhoofay sidoo kula joogo baa la oranayaa uu tagay ma yasbir bas sabrayaano fadhiiso ku karimaysid markaas ay raad uga tagno maxayna laga rabaa حصلي وحين بلونا إننا نكهرين أي نكجون كامل قلوب كسدحات هم مسرة سقناشة يا صبر نوش هذا هذا وقتكتي محيري التفاؤل والثقة كنسولي وأنا لابت هذا كبذة فعل وناكسد إن شاء الله وهجاي ديراد ومفيعنا حنا هينا حاولت كيانا ودك بقى قوم تعالى وحنا مجامعة ها وحاكبح عاوز راكبح وحاس حاكبح انت هلك تعالى مركز ويليسيد اي اد كوبتيد اياد رادينيسا انت كا مقن marka laga sheekeynayo rihlatul ulama culimadu markay culumta raadsan jireen sharti baa u yaalaba aslanba ma dhoofi kartid baa lagu ilaa magaalada aad joogtid aqoonta taala aad horta koobsatid marka tiraay hargeysa iyo aygaarkeeda wixii yaalay waan hayaa ayaa maxaad leedahay waxaan u baahanahay inaan meel ka durugsan in aan tago ha degdegin adiguna laqad kaana nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu busta huwan oo kaabada hadsanaya ayuu khabar ibn arati u soo galay oo la soo ciqaabo la soo dilay markaasuu nabigu ku qeylay rasuul allah ilaahay ma noo barid waana la dilay
أنا العذاب قريش بان نفط نوكنت ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا إلهي أو قوشي سياو قرمت كيله مرسول النبي حديث كيري صلى الله عليه وسلم أركان ابن الخباب بن عوف أنتوا النبي بسطيس كرني صلى الله عليه وسلم لو مسكين رسول الله بقديم ويا لله إلهي بات إلهي تكون فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها مطر السم إنك مرمر ميانك وقبلنا ما كنا نقول هذا مسلمين ولا حسوقها هي إدم لها وحكنا دقيستون ما نصورنين إلههم دم كسيس إذا قامت بدون ما نصورنين صوروا صايب خباب بن عرض نبي يقول صور دول رسول الله بها مركاسي وضعك عليه خباب لقد كان من قبلكم أمده إذ كهري لا يمشطون مشاط الحديد هذه بكورو يهي من دي أيا هلبك يلا فهود اللي وكلا سافي جري دون عظامه إلا لفت اللي جاري هلبك اللي جري جري أمده إذ كهري محل عقابية دين تكبر